Assalaamu calaykum. Hore waxaad u aragteen in maxkamad la isku saaro dhac, boob iyo dil, laakiin taasi way ka duwan tahay maanta waxa aan ka hadlayno. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe inoo saar siduu kuu soo gaaro barnaamijyada ka baxa channelka. Mahadsanid. Garyaqaan difaacaya eedeysano Mareykan ah ayaa sheegay in maxkamaddu u jartay 30 cisho oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $5,000 Mareykanka ah nin lagu eedeeyay in deriskiisu ka soo dacwooday qosolkiisa oo aad u dheer darteeda. Garyaqaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ninka uu wakiilka u ahaa ee uu difaacayay Roberto Jeffrey oo 41 jir ah oo ay boolisku u geeyeen warqad lagaga codsanayo inuu maxkamadda yimaado kadibna lagu furay dacwad la xiriira qosolkiisa. Qareenka difaacaya ninkan ayaa sheegay in lagu soo eedeeyay in subaxnimadii bishii February 13 daaqadda gurigiisa oo ku yaalo degmada Rockville Center ee jasiiradda Long Island oo ka tirsan New York uu soo istaagay isaga oo si cod dheer ah ugu qoslaya deriskiisa. Qofka deriskiisa ah ee ka soo dacwooday ninkan ayaa sida la sheegay ahaa qof curyaan ah oo naafo ah, kaas oo isagu sida uu ku doodayo uu doorbiday inuu ka farxiyo, balse uu si kale u qaatay oo cudur ay arrintii ku noqotay sida uu ku doodayo. Ninka xukunka lagu riday ayaa sheegay in aanan jirin wax dhibaato ah oo u dhaxeeyay qofka deriskiisa ah ee eedeeyay, isla markaana uu aad ugu xun yahay in uu qalad u fahmo. Wuxuuna sidaa u sheegay warbaahinta inuu iska bixin doono ganaaxa la saaray isaga oo bish xeragga ahna dhammaysan doona ama iibsan doona sida uu warbaahinta u sheegay ayaa sidaas ahayd. Fadlan haddii uu ku cajabgeliyo fiidiyogan, like inoo saar si ay inoogu noqoto dhiirigelin, siina share garee.